midowga ummadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Finland ayaa garoonka diyaaradaha ee Helsinki faanta waxay ku soo dhaweeyeen xildhibaan Maxamed Cabduqaadir iyo xildhibaan Maxamed Buraale oo labadaba ka wada tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Soo dhaweyntaasi kadib waxaa shacabka Soomaaliyeed ee degan Finland labeentoodii ay isugu yimaadeen hoolka xafladaha ee Esbo si iyaga iyo xildhibaanada qaran ay isku xog wareystaan isla markaana xildhibaanada loogu dhiibi lahaa culeysyada haysta jaaliyada Soomaaliyeed ee degan waddanka Finland ayagana looga dhageysan lahaa horumarada isdaba jooga ah ay dawladdu samayso. xildhibaanadeena federaalka xildhibaanada Finland jaaliyadaheena oo idil odayaasheena iyo gabdhaha quruxda badan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xafladan loo qabanaa labada xildhibaan oo federaalka ah. xildhibaan Maxamed Buraale ayaa shacabka Soomaaliyeed ee Finland ku amaanay sida ay uga qayb qaataan gurmadka marka xaalad adag dalka laga soo sheego, halka xildhibaan Maxamed Cabduqaadirna uu shacabka Finland u sheegay in dhibaatada kaliya ee dalkeena ka jirta ay tahay argagixisada Al-Shabaab. sida dadka wada sheegay anigu waxaan ka shaqeyn jiray arrimaha bulshada gudoomiyaha dhalinyarada ahay xilligii fatahaadda waxay ahayn reer Finland Helsinki iyo Turku saaxiibka Cabdinaasir magaaladiisa dadkii aad uga qayb qaatay oo Soomaalidii fatahaadda aad uga qayb qaadatay dhaqaalaha badan ku baxshay aniga dadkii loo soo diraayo oo wax qaybinayaan ahay runtii waxay ahayn dad aad u wanaagsan oo dadkayna la dareen noqday meeshii aan joogay oo aniga markaas aan joogay gudoomiyaha dhalinyarada ka ahay xanuunka dadka meeshaas ka jiray dadkii dareenka la qaybsaday ee sida wanaagsan ugu soo gurmaday ahaayeen. caqabada ugu weyn ee dawladnimada Soomaaliya haysato waa argagixisada oo runtii ku habsatay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. haddii intiina badan magaca argagixisada ah maqal idinku yahay waxaan rabaa tusaale yar inaad ka sii nooca ay yihiin. magaca Soomaali way ka yihiin ku u hadlana waa Soomaali laakiin fikirka iyo ra'yiga iyo erayada ay ku hadlaan dhammaan ma ahan erayo Soomaaliyeed waxa u soo dhiibay ajaanib dalalkooda ka soo galay dambiyo gabaanna ka dhiganaya dalka Soomaaliya nicmooyinka faraha badan ay ku hareeraysan yihiin. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaano golaha deegaan oo waddankan Finland gobolada iyo caasimadaba laga soo doorto iyo madaxda jaaliyada Musef iyo mas'uuliyiin kale. horta waxaan rabaa xildhibaanada inaan u sheego meeshaan dadka ugu miisaanka cuslaa waddanka in ag fadhiya oo idin yimid oo waliba bari oo Monday ah oo xilli shaqo ah maalmahan oo kale fasaxyada waa guryaha lagu jira reerka iska leh in loo soo baxo waxa mas'uul ka ah jaaliyada meeshaan xalfadan abaabushay munaasabadan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo walaalaheen laba Maxamed oo loo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan iyo soo dhaweyntan heerka sare ah waxaan labada xildhibaan xasuusin lahaa horta Finland waa dadka finishka ah waa dad la dhaho curiosity dadka wax baara marka wax yaraan ka soo baara labada xildhibaan waxaan soo ogaaday labadoodu inuu mid walba uu marka laga soo tago arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo waxqabadkan kale ee laga soo tago nimba dhinac inuu ka soo galo bulshada. mudanayaal ku soo dhawaada mar labaad waddankan Finland jaaliyadii Soomaaliyeed oo dhan ayaa halkan caawa idin fadhida inay warbixin idinka dhageysato iyo halka uu waddankeena ku sugan yahay. waddankan Finland jaaliyada Soomaaliyeed degan waxa lagu qiyaasay 26,000 waa waddan aad iyo aad fursado badan oo waxbarasho u leh. waxaan leeyahay xildhibaanada qaybaha badan leh ku soo dhawaada waddanka Finland. xildhibaanadii ugu horeeyay ma tihiin kuwa ugu dambeeyayna insha Allah ma noqon doontaan sidii xildhibaanadii niiga horeeyay loo soo dhaweeyay ka qurux badan aan li soo dhaweeyay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay ku soo dhawaada waddanka Finland. sharaf iyo karaamo dheeri ah ay noo tahay maanta in xildhibaano ka socdo baarlamaankii waddankeena oo mas'uuliyiin Soomaaliyeed ah dhalinyarna ah inay halkan noogu yimaadaan waqooyiga Yurub nagu soo booqdaan meesha aan ku noolnahay naga soo war doonaan. farxad weyn ay tahay aniga iyo wafdigayga balaaran in ku dhow 200 oo kiiloomitir u soo baxnay
si aan u soo dhaweyno xildhibaanada heer federaal wixii tahay iyo tusaalan waxaan u malaynayaa bulshada ayaaba horay ugu sii qaarna u sheegtay loona sheegi doonaa u dhiman tahay maxamed cabdiqaadir iyo maxamed cali buraale soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada ku soo dhawaada Finland waxaan aad iyo aad u salaamayaa xildhibaanadeena federaalka oo nooga yimid wadankeennii dhammaan madaxda kale oo la fadhido halkaan fadhido iyo dhammaan gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed halkaan isugu yimid waxaan idin leeyahay waan ku faraxsanahay xafladan aad iyo aad u mahadsantiin sida sharafta leh wanaagsan idinkoo mansabkiina iyo magaciina ku fadhiyo kaliya laab beerkiidiga ogsooni insha Allah mar walba intana sidaan oo kale aan isugu dubnaano